wacan oo wanaagsan aqayaarta awada naga daawanaysaa ku soo dhawaada warka telefishinka Ilaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha fulinta barnaamijka cunnada adduunka ee qaramada midoobay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo ka hadlay lacagaha lagu aadayo xajka sanadkan dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay cunaqabataynta hubka saaran Soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac oo maanta daafuray barnaamijka tirakoobka hanaanka dadka iyo guryaha Soomaaliyeed taliska ciidamada xoogga dalka oo faahfaahin ka bixiyay howlgallo ay ku dileen xubno ka tirsan dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo digniin u diray ciidanka asluubta Soomaaliyeed ciidamo gadoodsan oo xirtay kontarool ku yaala magaalada Gaalkacyo dad ku dhintay shil gaari oo ka dhacay deegaano hoos tago maamulka Somaliland dowladda Soomaaliya oo soo saartay digniin ku socoto shirkadaha diyaaradaha intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka Ilaa